أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. magacaygu waa Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed, gudoomiyaha xisbiga talo ku nool ee u ololeeya in wadankeena Soomaaliya lagu xukumo dastuurka Islaamka, kitaabka Jamciga Sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. sida ogtihiinba xisbiga talo ku nool waxa aan cunaqabataynay doorashada dhacaysa beritoole 15 bisha. maanta waa 14 waxaan rabnaa haddana xisbiga talo ku nool inaan samayno arar waxa la yiraahdo ama afeef inaan samayno. waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno dhibaatooyinka maanta ka jira wadankeena oo ay aasaas iyo sal u tahay in dadkii Soomaaliyeed lagu sii jiheeyay ama ay ku sii socdaan qaabkii diinta Islaamka looga saari lahaa dhamaantood. waxaan rabnaa inaan ka hadalno doorashada iyo waxyaabaha la xiriira iyo dhibaatooyinka sida guud u haysta dadka Soomaaliyeed ee nusqaamiya aqligoodii ee keenay darajada xayawaanka oo kaleeto ee ka soo celiyay darajadii bini'aadanimada. aan ku bilaabo الله سبحانه وتعالى سورة القريش أيضا أقدم بوحاء كشاقي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. معناها لقى قادنا يو أيضا القرآن كاي وحيتها قفك بني آدمك مركا لباتوينك قاركو سيدا إن أوسن هيسن أمان أما باهي أي هيسو إن لقى عفنا يو وحيابها قاركو وعبادة سيدا للرسول اللي ماكن سيدا درادي nin la yiraahdo Maslow ama Ogala Francisca ayaa wuxuu ka qoray buugdan oo maanta lagu barto jaamacadaha caalamka khaasatan Westernka waa sida loo gumaysto wadan. markaad rabto wadan inaad gumaysato ama bulsho inaad wareeriso oo waxaad rabto aad u sheegto ayna ka qaataan waxa qasaba marka hore in aad ku tusalido ama aad wadankaas geliso xaalad khatar oo dadkaas ay ku sugan yihiin cabsi iyo baahi labada. taasoo sida wadankeenu maanta uu ku sugan yahay. sababtaas ayaa keentay shacabka Soomaaliyeed maantay marka ay wax dooranayaan inay isticmaalaan laba qaacido ama baan dhahno waxa wax dooranayaahi ama u ololeynaya ama diyaar waa ama jacaylka qof inay ku doortaan laba qaacido. qofka la dooranayaana inuu isticmaalo hal qaacido. maxay kala yihiin? qofka Soomaaliga ee maantay wax dooranaya ama doonayo inuu wax doorto waxa uu isticmaalaa laba qaacido oo kaliya. waxay tahay labadaas qaacido qabyaalad iyo quud. qof kasta oo Soomaali oo maanta nool hadii uu qof u ololeynayo wuxuu ugu ololeeyaa ku jeclaada ku taageera dhiigiis ugu dhaqaaqa qaabka tirtiba u dhigay in qofkaasi uu yahay qabiilkiisa ama uu ka helayo quud sandareerto ha ahaato mid waqtigaas la siiyay ama mid soo socoto loo ballan qaado. sidaas ayaa qof kasta oo maanta u taagan inuu qof taageero hore u taageeray u ololeynaya la qaylinaya u xamaasadeynaya waxay ku saabsan tahay oo kaliya inuu qofkaasi ama qabyaaladu ku taageerayo ama qudu ka rabo. qaarkood waxa laga yaabaa ballan qaadi inay haystaan. taasi waxay meesha ka bixinaysaa qofka bini'aadamka ah inuu u fakaro sidii bini'aadamka. sababtuna waxay tahay in qofkii uu ka cabsanayo baahi ama cabsi nabadgeliyo. sida daraadeed waxa kaliya oo uu fahmi karo oo ku tirsan yahay sida xooluhuba ay isugu yimaadaan oo ay xayn u socdaan inuu xayntaas u socdo inuu qabiilkiisa ku dhex jiro. qabyaaladii halkaas ay tagtay. waxa kaloo jirta qofka maanta aad dooranayso qofka aad u ololeynayso waxa uu wataa hal qaacido. qaacidadaasi maxay tahay? wuxuu wataa waxa la yiraahdo qorshe qalaad. inuu wadanka ku maamulo qorshe qalaad, inuu wadanka diinta ka saaro, inuu dadka Soomaalida dantooda uusan ka shaqayn ee uu ka shaqeeyo danta wadan kaleeto ee asaga meeshii. waxaana si daraa marka ayadoo ay saas tahay halka xaaladu ku sugan tahay in dadkii Soomaaliyeed qof yar in yar maahane intooda kale aysan arki karin. waxaa ka badbaaday dadka noocaasa dadka isticmaala qabyaalada quudka iyo qorshaha shisheeye. waxaa ka badbaaday boqolkiiba hal. dadka noocaasina waa xisbiga talo ku nool iyo wixii lamid. xisbiga talo ku nool dadka xibnihiisa ka tirsan iyo taageerayaashiisu waxa ay ka xoroobeen inay isticmaalaan quud iyo qabyaalad iyo qorshash qalad. anagu ma isticmaalo. sida daraadeed xisbiga talo ku nool waxa uu cunaqabateeyay waxa uu cunaqabateen ku soo rogay waxa uu dib uga istaagay waxa uu go'aansaday inuusan la galin bayca ama balan uusan la galin beesha lixaad ama gaalada ama ashqaaqad bisab taqaan. sida daraadeed waxaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed maadaama aad halkaas xaaladu ay ku sugan tahay waxaan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa in ay dib uga soo laabtaan oo ay taageeraan xisbiga talo ku nool oo u taagan in wadanka Soomaaliya lagu xukumo dastuurka Islaamka, kitaabka Jamciga Sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. haddii aan doonayno xil sida dadka qaarkoodba haddii ay naga tahay xil jacayl haddii ay naga tahay waxyaabaha qaarkood
waxaan la geli lahayn beecada gaalada beesha lixaad waxaad ogtahay maantay in meesha lagu tartamayo ama dadka khudbaynaya ay ku dhex jiraan dad kitaabka la taagan oo oranaya anigu waxaan ku xukumayaa kitaabka su'aasha la weydiin karaa dadkaasi waxay tahay haddii aad kitaab la taagan tahay haddii aad rabto inaad diin wax ku xukunto maxaa kugu qasbay inaad marka hore bayca la soo gasho ama heshiis la soo gasho gaalada maxaa kugu qasbay inaad aqbasho dimuqraadiyad iyo dastuur gaalnimo miyaysan inaad been noo sheegaysid miyaysan ahayn inaad ku gambanayso diinta oo aad dan ka leedahay kitaabka inaad wado amaba aad tahay qof loo soo diray bulshada oo qiyaamay waayo qofka bini aadamka ah marka uu wax kuu sheego oo uu ku yiraahdo anigu waxaasan samaynayaa waxaa la fiiriyaa tilaabooyinka ka horreeya qofkaas dadka badanaa diinta islaamka jecel ama maanta waqtigan xaadirka u ololeeyahay waa dad dhibaatooyin soo maray lasoo xiray lasoo ciqaabay lasoo jirdilay intooda badan dadkaasi waxaad fahmi kartaa inay yihiin dad ay daacad ka tahay waayo ilaa taariikhdooda laga yaqaano waxay u ololayeen diinta islaamka haddii maanta anagu xisbiga tala ku noolaanahay haddii aan sida dadka qaarkiis doonayno inaan meesha istaagno ama ka muuqano sida dadka qaar ba ay noo sheegeen waxaan qaadan lahayn beecada ay galeen dhammaantood inta meesha joogtaa waxaan leeyahay marka maanta ninka kitaabka la taagan ee doonaya ee ku oranaya anigu kitaabaan la taaganahay ama kitaabaan raba inaan kugu xukumo war markii hore beexaa soo gashay waxaa taas kasii horreeyey kitaab jaamacahaad waxaad ku soo martay gaalo ugu soo dhaaratay inaad difaacayso dastuurkooda iyo diintooda hala imaanin maanta marka bulshada Soomaaliyeed dadka noocaasi ama dadka anagu aan ugu yeerno haddaan xisbiga tala ku noolnahay cimaamadleyda dimuqraadiyiinta ah ama dadka cimaamadaha wata oo ku dhex gamanaya wadaadada oo iyagu u ololeeya dimuqraadiyada iyo dastuurkaba dadkaasi waa dadka ku haya dhibaatada ugu badan wadankeena Soomaaliya waayo dadka Soomaaliyeed intooda badani waa juhala ma yaqaanaan diinta islaamka nin cimaamad wata hadday arkaan waxay u haystaan inuu yahay nin wadaad hadduu dhowr xabo carabiga ku tuura karana hadda iska badaaba waa damdiil waxaan leenahay marka walaalkayga islaamka walaashii islaamka ah ka digtoonow cimaamadleyda dimuqraadiyiinta ama dimuqraadiyadu diinta ay u tahay laakiin cimaamadleyda ka digtoonow yeesan ku sii ma aha islaam waa dad ku gambanaya ama sandareerto ka raadinaya ama baahidii adiga kuu geysay inaad qabyaalad iyo quud wax ku taageerto ayaa ayagana u geysay inay diintii hoos galaan oo kitaabka iyo diinta islaamka ay isticmaalaan si danahooda ay ugu gaaraan xaqiiqdu waa sidaas waayo haddaysan saas ahayn marka hore ma soo saxiixdeen dastuur ama dimuqraadiyad ma dhahdeen iyadan wax ku maamulaya ma aadan gasheen heshiiskaas baycadaas ma gasheen waxaan saas u leeyahay qaarkiin waxaa laga yaabaa inaadaan fahamsanayn laakiin xaqiiqdu waxay tahay marka qofka maanta uu doonayo inuu xil qabto marka uu rabo inuu tartamo marka xisbi uu isdiiwaan gelinayo waxaad maraysaa procedure ama macnaha xaaladaad maraysaa xaaladahaas waxay yihiin marka horeysa inaad ogolaato inaad wadanka ku maamulayso dastuurka hadda inoo qoran oo ah dastuur gaalnimo inaad aqbashan tahay dimuqraadiyadda waxa la yiraahdo inay ka dhacsan tahay oo aad ogoshahay federalism inaad ogoshahay kootada dumarka inaad ogoshahay sharciyada wadanka u yaala that means qofkii waxada gacanta lama goy karo tuuga amiine waxba laguma samayn karo naagtii dhilaysata lama jeedali karo haddaysan weli guursan hadday guursatana lama dili karo sharci diin islaam wax la yiraahdo ma jiro ayagu waxay u yaqaanaan sharciyada noocaasi inay tahay barbaric ama wax baadiya wax bari hore laga soo tago reer baadinimo annagu laakiin waxaan u naqaanaa inay tahay xaqii Allah subhanahu wa ta'ala uu ku yiri rasuulka ilaahay ku xukun wixii ilaahay kugu soo dejiyay ku xukun kitaabka islaamka waxaan rabaa marka dardaaranka inaan saan u sameeyo haddii Allah yiraahdo bari toole waxaa la dooran doonaa hal qof waxaa dhici doonta marka dadka maanta ku tartamayo oo isku haysta qabyaalada iyo quudka iyo qorshaha qalaad waxaa dhici doona qaarkood inay kuraasta waayaan hal maahan inta kale kuraasta waayaan waxaa sidoo kale dhici doona dadkaasi markay kuraasta waayaan weli inaysan harin ee ay ku daba dhagaan ninka kursiga haysta markaas taasna waxaan leenahay haddaan xisbiga tulkuloonahay waa qalad ninkan aad leedahay mucaaradan ku ah ama waa ka soo horjeedaa waxaad uga soo horjeeda male isku mabdaad aaminsan tihiin dimuqraadiyadu aaminsan yahay dimuqraadiyadu aaminsan tahay waxa beesha lixaad u keentay aad aaminsan tahay cahdigii uu la soo galaad la soo gashay qorshihii qalaadaad wadataa lacagtu soo qaataad soo qaadatay ma noo sheegi kartaa marka berritoola sababta mucaaradka aad dhigaysa ma noo sheegi kartaa waxa aad uga duwan tahay asaga waxay idin caddaynaysaa si aad ogtihiin ba taariikhda dhow ee aan soo dhaafnay qof ku jira dowladda markaas xilka haysay ayaa dhinacii kale soo maray waxaana laga yaabaa ama aad ogtihiin qofkaasi inuu ahaa qofka dhibaatada ugu badan geysta marka mucaaradku ay hadlayaan
hase yeeshee gacmo furan kusoo dhaweeyay micnaheeda taas wuxuu yahay ma jiro wax la yiraahdo mucaarad aan ka ahayn xisbiga talo ku nool oo ka haysta ama aaminsan mabda ka duwan mabda'a wax lagu xukumayo hadda waayo saad ogtihiinba mucaarad waxaa la yiraahdaa waxaa ka soo horjeesta dowlad xisbi ka duwan fikirka ayagu ay wax ku maamulayaan anagu haddaan talo ku noolnahay waxaan u taaganahay inaan wax ku maamulno dastuurka islaamka kitaabka jaamaca sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam kuwan hadda ku loolamaya meeshana waxay u taagan yihiin inay wax ku maamulaan dimuqraadiyad iyo dastuur gaalnimo inay ku maamulaan ahdigii ama bay'adii ay la soo galeen beesha lixaad in wadanka ay diinta islaamka ka saaraan inay ogolaadaan laba gabdhood inay isguursadaan laba nin isguursadaan inay la tahay iyaga agtooda barbaric ama wax reer baadinimo in gacan la jaro qofkii waxda in la jeedalo ama ritmi lagu dilo qofka zaaniga in la oofiyo wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri waxay kugu yeerayaan wiil markuu jiro 18 sano inuu wali caruur yahay waxa ugu taala sharcigooda ama dastuurka qaybta kood waxa ku taala ilaahay ka sokow micnaheedu inuu yahay ilaahay xagga naga dhigay annagu aan sharci degsan waxa ku taala ilaahay ka sokow sharci dejinta waxa iska leh dadka Soomaalida ayagoo isticmaalaya ama si toos ah ama dadka ay doorteen waa baarlamaanka sidaas iyo baarlamaanku wuxuu ku yahay ilaahiyo sharciga dejiye qofka aaminsan nidaamkaasna waa gaal annagu waxaan ka soo horjeednaa marka nidaamka noocaas haddana xisbiga talo ku nool sida daraadeed waxa ceeb noqon doonta beritoole in qof kale uu soo istaago oo yiraahdo anagu mucaaradan waxaan jeclahay shacabka Soomaaliyeed inay xusuustaan arrintan iyada beritoole markaad aragtaan qaar ku daba degan ninku rabo ba ahaado ninka ku soo baxa maantay oo aan ka ahayn xisbiga talo ku nool in ay weydiiyaan war maxaa ninkan mucaarad ugu tahay mana rabo mucaaradnimadu inay noqoto ana ka qabiil duwan because kulligan waa kala qabiil duwan waxa la rabaa mucaaradnimadu inay ku salaysan tahay mabda'a oo lagu kala duwan yahay fikirka oo lagu kala duwan yahay maxaad rabtaa wadanka inaad ku maamusho maxaad aniga ka duwan tahay haddii ay sheekadu tahay ama mucaaradnimadu tahay ka soo bax guriga kursiga aan ku fadhiista markaygi mucaaradnimo la yiraahdo taasi waxa ka dambeeya beesha lixaad oo ugu tala gashay xataa hadday ninkii caadiga ay la soo galeen mid ka midii uu ku guuleysto si uusan wadanku u degin kuwii kale ku soo diraya intay lacag soo siiyaan waxay leeyihiin ninkan carqaladee ama waxa laga yaabaa beesha lixaad laftirkeeda far badan qaar markii ay ku guuleysteen kursigii kuwii kursiga aan ku guuleysanoo dantoodii meesha aysan ka muuqan inay soo diraan ninka waxaan rabaa marka shacabka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan arrintan waxaan idin leeyahay wadankan waxa guul lagu gaari karaa waxa idinka bixi kara dhibaatada aan idin sheego ah in aad ku mashquulsan tihiin inaad ku tagteen xadka ama aad taagantihiin dabaqada xayawaanka waayo qofka marka baahi iyo cabsi uu qabo xayawaanka uu noqdo ma fikri karo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka fududeeyay sharciyada qaarkood sida qofka marka baahi hayso waxa lagu ogol yahay wixii laga xaaraantinimeeyay dunti haddii cabsi ay ku haysana waxa lagu ogol yahay marka qaarkood inaad afka ka tiraahdo waa gaaloobay ama aad tusto inaad gaal tahay adoo iimaankaaga hoosta ka haysta micnaha taas wuxuu yahay gaaladu waxay maanta wadankeena geeyeen xaalad qof kasta oo Soomaali uu ka cabsanayo baahi iyo amaan darro sababta daraadeed dadkeedii banaanka u siiyay sababtaas daraadeed ayaa qof walba maanta inteeda badani waxay aaminsan yihiin qabyaalad iyo quud waxa la yiraahdo wax may siinaysaa ama ma tahay qabiilkayga aniga wadan lagu maamulayo qabyaalad quud iyo qorshe qalaad horumar maayo wadan dadkiisu ay aaminsan yihiin qabyaalad iyo quud iyo qorshe qalaad hore u socon maayo ma dhismayo halkaas waxa ku burburiya diinteena waxyaabaha ay ku guuleysteen beesha lixaad iyo gaalada ama al-shiqaaqad basaad u taqaanaan waxa kamida markii halkaas ay nageeyeen qabyaaladii iyo quudkii inay noogu soo dhex qariyeen gaalnimo inay noogu soo dhex qariyeen waayo dastuurka waxaan aaminsanahay maanta shacabka Soomaaliyeed haddii waxay cunaan ay haystaan nabadna ay haystaan inaysan ogolaadeen in dastuur gaalnimo lagu dhaco waxaad xusuusataan wixii ceebta ahaan jiray ayaa hadda noqda caadadeen anigu markaan korayay oo ninka yar ahaa jaajuus wuxuu ahaa ereyga ugu fooshoon qof lagu caayo maanta waxa lagu faanaa reer hebel ay wata wadan hebel ay wata jaajuusa waxa keena arrintaas dhibaatada aan ku jirno ah baahina haysa oo ka cabsanayno iyo amaan darro in haysa oo ka cabsanayno labadabana waxa looga bixi karaa in aan qaadano dastuurka islaamka kitaabka jaamaca sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan jeclahay waqtigan inaan ku soo guraanado maantay ma jiro wax mucaarad waqtigan xaadirka taariikh 14 beritool waa 15 taariikh 14 maanta lagu jiro mucaarad ma jiro
dhammaan qof walbaahi ama group walbaahi wuxuu u tartamayaa si asagu xilka ku heli lahaa mucaarad ma jiro aan ka ahayn tala ku nool aan ka ahayn xisbiga tala ku nool maxaa wacay annagu waxaan go'aansanay inaanan ka qayb gelinin doorashada hadda socota sababtoo ah waxay noqotay inaan kala dooranno ama inaan ahdi la galno inaan bay'an la galno beesha lixaad oo gaalada oo aanan intaanan meesha tagin saxiixno ku dhaaranno aqbalno inaan wax ku maamulayno dastuurka gaalnimada iyo dimuqraadiyadda oo aan intaasoo sano u ololeynaynay inay qalad yihiin dadka aan u sheegaynay in la iska dhaafo dad badan nagu soo raaceen ama inaan bannaanka ka joogno waxaan dooranay intaan ku xadgudbi lahayn diinteenna iyo mabaadi'da aan aaminsanahay inaan bannaanka ka istaago laakiin waxaa naga liita waxaa aad u xun dhammaan inta gashana waxa ugu sii liita midka intuu galay la dhex istaagay dadkoo yidhi kitaabaan wata yaa waylaga markii horaadba waxaad soo go'aansatay beecaad soo gashay yaad beenta u sheegaysaa marka haddii aad tiri dimuqraadiyadda dastuur gaalaan aan ogolahay oo aad soo saxeexday oo aad soo ogolaatood meesha ku timid see iiga dhaadhicinaysaa see shacabka Soomaaliyeed ugu sheegaysaa inaad kitaabku maamulaysid maxay tahay muxaadarada aad ka jeedinaysid baarlamaanka ama kaniisadda diinta dimuqraadiyadda maxay tahay macbadka diinta dimuqraadiyadda inaad ka jeedisid micnaheedu waxay tahay inaad isku qastay xaqi iyo baadilkii micnaheedu waxay tahay shacabka Soomaaliyeed inaad weerarinayso micnaheedu waxay tahay dadka juhalada inaad diinta uga ciyaarayso micnaheedu waxay tahay inaad tahay cadowga islaamka qofka noocaas oo kale ahi wuxuu u baahan yahay in laga fakaro waxaan idin leeyahay marka maadaama maanta mucaarad uusan jirinin waxa kaliya mucaarad waa xisbiga tala ku nool waxaan rabnaa beritoole marka qof la doorto mucaaradnimadu in aad ku qiyaastaan ama aad ku qiimaysaan yaa ka mabda duwan qofka inta maanta meesha isku tagtay ee doorashada ka qayb galaysa inta beecada la soo gashay beesha lixaad iyo gaalada la soo gashay inta dimuqraadiyadda iyo dastuurka ogolaado ku dhaartay inay wax ku maamulayaan aqbalay iyagu waa hal group waxa kaliya ku kala duwan yihiin waa qabyaalada qoodka iyo qorshaha shisheeye wataan intuna Soomaali waxay u tahmala waxa Soomaali wax u ah waxa wadankeena dhisaya waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed hadaan xisbiga tala ku nool inay taageeraan ololaha lagu hirgelinayo dastuurka islaamka kitaabka jaamacada sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan kaga tagaynaa waxaan jecelnahay marka haddii alla yiraahdo la gaaro doorashada kale soo socota ama aniga aan ahaado ama qof kale xisbiga tala ku nool u taagana ahaado inaan ku guuleysano haddii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiraahdo biidnillahi alkareem in shuruudda maanta meesha taal oo ah ama saxiix oo gal bayco gaalada inaad ku dhaqayso waxooda ama banaanka joog inaan taas bedelno ugu horeyn kadibna doorashada saas uga qayb galno وإذن سلام يا دمانتين شعبك الصومالي وحان ليهاي حلكو وحو كجرا دين إسلامك دستورك إسلامكو وانا حق وانا حل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته